madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, halkaas oo ay uga bilaabatay madaxweynaha booqasho qaadan doonta muddo 2 cisho ah, iyadoo safarkan uu hadda madaxweynuhu ku tegey dalka Eritrea uu yahay safarkii 7aad ee uu dalkaas ku tago tan iyo 15 May markii madaxweynaha dib loo doortay. Safarkan oo ka duwan safaradii hore ayaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in isla Asmara caasimadda dalka Eritrea uu ku soo wajahan yahay wafdi kale oo ka socda dalka Masar. Wararku waxay sheegayaan in 3 dowladood hadda ay isu diyaarinayaan inay ku dhawaaqaan isbahaysi cusub. Isbahaysigan oo markaasi ku wajahan dhinacaas iyo dalka Itoobiya. Isbahaysigan oo muddo dheer aad loo hadal hayay, isla markaasna dhaqdhaqaaqiisa uu ka socday oo laga dareemayay geeska Afrika, ayaa hadda la filayaa in 3 dal ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan. Haddaba warbixinteennan aynu ku dul joogsan doonaa oo aynu ku falanqayn doonaa isbahaysigan cusub, sababaha keenay waqtigan in 3 dal ay isbahaysi ku dhawaaqaan, saamaynta uu isbahaysigan ku yeelan doono xasiloonida nabadgelyada gobolka geeska Afrika, hoolanka cusub ee haddii isbahaysigan lagu dhawaaqo ku soo wajahan amase ka qarxi doona geeska Afrika. Isbahaysigan haddiiba 3 dal ay ku dhiiradaan inay ku dhawaaqaan, caqabadaha ka hor iman doona iyo fursadaha ay haystaan isbahaysigani inay ku guulaystaan sidii markaan ay dalka Itoobiya ugu dhammayn lahaayeen oo isla markaasi ay ka saari lahaayeen liiska dalalka saamaynta ku leh siyaasadda gobolka geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dhammaan arrimahaas iyo qodobo kale oo la xidhiidha hoolanka iyo tartanka geeska Afrika ayaynu warbixinteenna maanta ku falanqayn doonaa. Intiinii hore u dhageysatay warbixintan oo kale ah oo aynu ka diyaarinay isbahaysigan, iyadoo ayna soo shaac bixin aan ka hor dhacnay waqtigii khilaafka u dhexeeyey Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waqtigii Masar ay bilowday inay dalka Soomaaliya ku soo daadgurayso hub, ayaa aynu kaga faalloonay. Balse hadda ayaynu si fiican u lafaguri doonaa arrimahaas. Aan ku bilownee geeska Afrika oo ku yaalla goob istiraatiiji ah, waxa uu ka mid yahay goobaha uu ka jiro tartanka ama loolanka caalamiga ah ee u dhexeeya dowladaha waaweyn ee saamaynta ku leh gobolkan iyo dhinaca kale urur goboleedyada gobolka oo iyagana saamayn weyn ku leh tartanka iyo loolanka geeska Afrika, sida ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka Midowga Afrika, iyo dhinaca kale loolanka u dhexeeya dowladaha si gaar ah saamaynta weyn ugu leh geeska Afrika. Dowladahan oo ay ka mid yihiin dowladaha ka tirsan urur goboleedka IGAD oo ay Itoobiya ugu horeyso, iyo dhinaca kale Masar oo iyadana uu loolan adag hore uga soo dhexeeyey dalka Itoobiya. Dhammaan dhinacyadaas iyo kuwo kale ayaa hadda waxay ku loolamayaan gobolkan geeska Afrika. Balse hadda waxaynu soo qaadanaynaa loolanka u dhexeeya Itoobiya iyo dalka Masar oo dhammaan loolanadaas aan soo xusnay ay ku abtirsadaan. Waxaan la soconnaa dalka Itoobiya iyo Masar inuu loolan adag ku soo dhex maray gobolka geeska Afrika. Loolankaas ayaa muddo dheer soo jiray, iyadoo labadan dal ay markaas kala mitalayaan ama si xarumahoodu ay ku yaalaan labada urur goboleed ee Jaamacadda Carabta iyo ururka Midowga Afrika. Masar ayaa iyadu waxa ay ololeynaysay inay saamayn weyn ku yeelato ama se ay noqoto midda iyadu si toos ah majaraha ugu haysa siyaasadda geeska Afrika wadanaha Masar istiraatiiji u ah.
masar oo hogaamisa jaamacadda carabtu waxay si gaara u danaynaysay masaalixdeeda gaarka ah ee biyo xidhanka webiga niil iyo dhinaca kale inay xulufo ku yeelato dowladaha gobolka ee markaasi ku abtirsada jaamacadda carabta si ay u yeelato xulufo ay kula loolami karto dalka Itoobiya. Masar waxay diiradda saaraysay dalalka Soomaaliya iyo Suudaan iyo Djibouti, dalalka carabta jaamacadda carabta ka tirsan isla markaana ka mid ah isla urur goboleedka IGAD inay kasbadaan safka xulufadeeda ay ku soo biiraan si ay fursad ugu hesho inay Itoobiya kaga guulaysato loolanka u dhexeeya Geeska Afrika. balse sanadadii u dambeeyay 30 sano u dambeeyay masraxa siyaasadda ee Geeska Afrika waxaa loolankaas ku adkaatay dalka Itoobiya. Masar ayaa banaanka laga dhigay saamaynta ay gebi ahaanba ku leedahay gobolka Geeska Afrika. Itoobiya ayaa noqotay mid majaraha u haysa guud ahaan siyaasadda gobolka ee Geeska Afrika, taas oo Itoobiya u sahashay in markaan ay dhaqan geliso damaceedii fogaa ee ahaa inay dalka Masar jilbaha dhulka ugu dhufato isla markaasina iyadoo ay si rasmi ah ula wareegto khayraadka iyo manaafacaadka ay ku muransanaayeen Masar iyo Itoobiya oo ah webiga Niil. dabcan taas Itoobiya markii ay fursad u heshay inay hogaamiso siyaasadda gobolka Geeska Afrika waxaa mar labaad ay ku guulaysatay in biyo xidhanka webiga Niil isagana khayraadkiisa ay si toos ah ula wareegaan. maalgashi fara badan dadaal badan oo ay gelisay Itoobiya biyo xidhankaas oo ay ka samaysatay biyo xidhanno badan iyo mashaariic ayaa waxay u sahashay inay Itoobiya la soo wareegto inta badan khayraadkii biyo xidhanka webiga Niil oo mar kale Masar banaanka laga dhigo manaafacaadkii iyo khayraadkii webiga Niil. Masar markaan waxay ku dambeysay cabasho dadaal diblomaasiyadeed iyo inay wada hadal ku raadiso sidii ay u heli lahayd xuquuqdeedii biyo xidhanka webiga Niil, maadaama ayna Masar u furnayn fursad kale ama sakaar kale oo markaan Itoobiya ay ku cadaadin karto, maadaama Itoobiya ay horay Masar uga guulaysatay qorshihii istaraatiijiyadeed iyo saamayntii ay ku yeelan lahayd Geeska Afrika ay guud ahaan siyaasadda Geeska Afrika iyo militari ahaanba ay Itoobiya majaraha u qabatay. Masar ayna markaan haysan goob istaraatiiji ah oo Itoobiya ay kaga soo dhowaan karto oo ay cadaadis ka saari karto. dhammaan guuldarrooyinkan iyo jabkan soo wajahay dalka Masar dhinaca kale ay sabab u ahayd hoggaan xumadii dalkaasi soo martay Masar ayaa markaas ay Masar muddo dheer ay sugaysay ugu yaraan inay hesho fursado ay ku soo rogaal celin karto. sidoo kale waxaa iyadana caqabad noocan oo kale la kulmay dalkii curdinka ahaa ee Eritrea iyaduna waxay ku xorowday dalka Itoobiya kadib xornimadeedii. Eritrea waxay bilowday firfircooni dhaqdhaqaaq badan inay isku daydo inay saameyn weyn ku yeelato siyaasadda gobolka Geeska Afrika ama ay majaraha u qabato. Eritrea waxay xidhiidh la furtay dalka Masar, waxaa kale bilowday inay markaan Eritrea raadiso inay saldhigyo muhiim ah ama dhul ay hore u sheegan jireen ay ka qabsadaan wadannada deriska. soo bilowgii waxaa isku dhacay Itoobiya iyo Eritrea oo waqtigaas ku xorowday. dagaal culus oo faraha lagaga gubtay ayaa isaguna halkaa ka dhacay. markaan Eritrea iyo Itoobiya colaad ayaa dhex martay, taas oo albaabka u furtay in markaan Eritrea ay u janjeersato dhinaca dalka Masar. Masar ayaa lafteedu istaraatiijiyadaas waqtigaas si fiican uga faa'iideysan iyadoo taageeradii loo baahnaa ayna Eritrea ka helin, balse labada dhinac waxay ka sinaayeen in ay caqabad ka soo wajahday saamayntii gobolka ay ku yeelan lahaayeen. Eritrea bilowgeedii waxay isku dhaceen Itoobiya, Djibouti iyo dalka Yemen. ugu dambeyntii Eritrea iyada lafteedu waxa ay markan noqotay sidii Masar oo kale in marka ay ku fashilanto inay saameyn ku yeelato siyaasadda Geeska Afrika. Eritrea waqtigan iyadana waxaa banaanka laga dhigay saamaynta siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika. labadan dal ayaa noqday waqtigaas inay ku saaqideen ama se laga adkaaday siyaasaddii gobolka. siiba Itoobiya Eritrea waxaa taas u dheerayd in markaas uu cadaadis kaga yimid dowladaha waaweyn sida reer galbeedka, Mareykanka iyo qaramada midoobay
taas oo ugu dambeyntii keentay in Eritrea loo aqoonsado dal halis ku ah nabadgelyada geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka, taas oo Eritrea markaasi keentay in gebi ahaanba la cunaqabateeyo. Labadan dal oo haddaba tiyadaas adag ku jiray lagaga adkaaday siyaasaddii geeska Afrika ayaa hadda oo wax badan iska bedeleen siyaasaddii geeska Afrika iyo tii guud ee caalamka. Waxaa hadda u soo baxday fursado ay ku soo rogaal celin karaan loolankoodii ay boodhka uga afuufi karaan. waa sababtan haddaba ujeeddada aynu uga soconnay dulmarkaas guud ee taariikheed waayihii loolanka ee dhinacyada, in hadda ay taasi mar kale sababtay fursado ka soo dhex baxay awgeed inay dhinacyadan boodhka iska soo jafaan, ay markaan ku fikiraan ama ay qorsheeyaan inay sameeyaan isbahaysi cusub. Isbahaysigan hadda la filayo inay ku dhawaaqaan dalalkan saddexda ah halkaas ayuu salka ku hayaa. waxaa markan haddana isweydiin mudan, haddii aynu ogaanay labadaas dal iyo jabkii ku soo dhacay iyo hadda oo ay u arkeen inay u soo baxday fursad cusub oo ay boodhka iskaga afuufi karaan, ay mar kale loolan cusub kula geli karaan Ethiopia. dalka Soomaaliya xaggee ayuu marka isbahaysigan ka soo galay? Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka madaxooda lagu dul dhoolamay. Soomaaliya iyo Suudaan oo ah dalal dagaallo sokeeye iyo qalalaasi ay ka jiraan, waxay markii horeba ahaayeen garoonnada amase dalalka ay ku dul tartamayeen dowladahan Masar iyo Ethiopia iyo Eritrea. hadda markaas waxaa soo baxday in saaxiibadii qaar ay dhabarka isu jeediyeen. Soomaaliya oo 30kii sane lasoo dhaafay ka mid ahayd xulafada Ethiopia iyo IGAD ayaa hadda khilaafka ka dhex qarxay Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskii isafgarad ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia. khilaafkaas waxa ay fursad ka dhex arkeen dalalkii Eritrea iyo Masar ee ku fashilmay siyaasadda Soomaaliya in halkan ay ka heli karaan saaxiibkii saddexaad ee xulafadooda ay ku soo dari lahaayeen, sababna u noqon lahaa inay mar labaad ku guulaystaan loolanka siyaasadeed ee ka jira geeska Afrika. dalalkan xiisadan in aanay qaboobin, inay cirka isku sii shareerto, saameyn weyn ayay ku lahaayeen, taas oo ay u sii mareen dowladda hadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. tan markaas waxay keentay isku soo dhawaansho, isbahaysi, isxulufaysi, aragtiyo siyaasadeed oo la mideeyey. dowladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo oo dhiirigelin dheeraada ka heshay dalalkan, intaasi ay kobciso damacii labada dal ee ahaa inay samaystaan isbahaysi. dabcan hadda Soomaaliya labadan dal way ku qanciyeen inay isbahaysigan cusub ay qayb ka noqoto. haddaba haddii aynu ogaanay sababta isbahaysigani ku yimid, isbahaysigan maxaa qorshahooda u yahay? qorshaha labadan dal ee Masar iyo istaraatiijiyadda ay ka leeyihiin hadda isbahaysigan cusub ee ay rabaan inay ku dhawaaqaan waxa ay tahay si ay markan ugu guulaystaan saameynta siyaasadeed ee gobolka, ay majaraha ugu qabtaan. waxay labadan dal culays ka saarayaan gebi ahaanba inay meesha ka saaraan dalka Ethiopia. dalalkan waxay hadda og yihiin in Ethiopia ay ku jirto xaalad adag, dagaallo sokeeye oo gudahooda, dhaqaale xumo, isla markaana hadda ay u dheer tahay khilaafkan cusub ee ka dhex qarxay Soomaaliya iyo Ethiopia. dalalkan marka hadda waxay rabaan si Ethiopia markaasi la isu sii raaciyo oo looga adkaado oo gebi ahaanba meesha looga saaro, inay taasi ku xidhan tahay in xaaladda geeska Afrika cirka lagu shareero oo ay faraha ka baxdo. dalalkan waxay u arkaan inta labadaas keliya ay tahay midda soo celin karta inay saameyn weyn ku yeeshaan siyaasadda gobolka geeska Afrika. sababtoo ah haddii taas ay dhacdo, waxay dalalkan helayaan inay dalka Soomaaliya soo degaan, saldhigyo military ka samaystaan. Soomaaliya istaraatiiji oo ah gobolka ay xulufada udub dhexaad ka noqoto, colaadda Soomaaliya iyo Ethiopia ay mar kale sii fogaato, xaaladda gobolkuna ay noqoto mid cakiran oo dhinacyo kale iyaguna ay madaxa la soo galaan. dhammaan kala cararkaas, burburkaas iyo isbedelada siyaasadeed waxay u arkaan inay marka u horeysa ay Ethiopia ku burburi doonto, iyaguna ay noqon doonaan kuwa saameynta weyn ku yeesha siyaasadda gobolka. iyagoo marka dalalkani ka duulaya taas, waxaa hadda ay u ololeynayaan ay geed dheer iyo geed gaaban u fuulayaan labadan dal sidii markaasi
ay Soomaaliya rasmi u noqon lahayd udub dhexaad ay ugu noqon lahayd xurufadan ama isbahaysigan cusub. haddii haddaba damaca labadan dal uu yahay in masaalixdooda ku jirto in xaaladda geeska Afrika faraha ay ka baxdo isla markaasina Ethiopia ay salfato oo Ethiopia ay halkaas ku jebiyaan, waxa uu yahay markaan damaca dowladda Soomaaliya ee iyadana la doonayo inay isbahaysigan udub dhexaad u noqoto. ay labadan dal u arkeen in Soomaaliya istaraatiiji muhiim ah u tahay isbahaysigooda. maxay Soomaaliya ka faa'iideysaa dalalkan danahooda iyo masaalixdooda gaarka ah fiirsanaya? Masar waxay fiirsanaysaa haddii Ethiopia culays adag soo wajaho waddankeedu uu jidka burburka cagta saaro, inay markaan helayso ugu yaraan in damaceedii inay saameyn ku yeelato geeska Afrika ay gaadhay, in markaan iyadu ay ku kariyoobi doonto manfacii iyo khayraadkii biyo xidheenka webiga Niil inuu dib ugu soo laabto haddii ay Ethiopia meesha ka baxdo. Eritrea iyada waxay ka filanaysaa haddii xaaladda gobolku ay faraha ka baxdo natiijada uga soo bixi kartaa inay tahay inay ka nasan doonto khatarihii iyo cabsidii ay ka qabeen dhinacaas iyo Ethiopia, iyo in mar kale Ethiopia oo awood leh ay fursad u hesho in Eritrea isku soo ballaariso. waxay Soomaaliya markaa iyadu helaysaa dowladda Soomaaliya ee hogaamiye hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo isbahaysigan lagu qanciyey ama ku qanacday, iyada damaceedu kuwaas uu ka hooseeya. dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay hadda mudnaanta siinaysaa laba arrimood inay ka faa'iido isbahaysigan cusub. labadan arrimood oo iyaga laftooda uun iska ah arrimaha dhow iyo damaca soke ee dowladda Soomaaliya. qodobka koowaad ayaa wuxuu yahay in Ethiopia oo heshiis la gashay Somaliland ay heshiiskaas ka noqoto oo markaanay ku soo laabato xayndaabkii hore iyo in ay u soo laabato heshiisyadii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ethiopia. dowladda Soomaaliya halkaa qodob ayay hadda Ethiopia ka rabtaa inay ku cadaadiyaan inay ka noqdaan heshiiskii ay la galeen Somaliland, loona soo noqdo heshiisyadii hore ee u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ethiopia. qodobka koowaad ee hadda Soomaaliya ay rabto inay markaan ku cadaadiso Ethiopia ee sababay in Soomaaliya ogolaato isbahaysi khatar weyn ku ah gobolka geeska Afrika. waa sababtay Soomaaliya ugu biirayso isbahaysiga Masar iyo Eritrea. qodobka labaad ayaa ah in si gaar ah damaca madaxweynaha Soomaaliya ee ah in markaas uu samaysto awood military oo guud ahaan dalka isku fidisa uu ku dhaqan gelin karo qorshayaashiisa dastuurka cusub, nooca cusub ee doorashada ah ee madaxweynuhu damacsan yahay inuu dalkan ka hirgeliyo, awooddii iyo cududii fulin lahayd ayaa markaan waxay dowladda federaalku ka rabtaa inay saaxiib badan ka hesho dhinaca ciidanka, istaraatiijiyadda, isku ballaarinta dalka iyo gobollada inay dowladahani ka caawiyaan. markaasna dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay u noqoto dowlad awood leh oo markaasi qaybo badan oo dalkeeda ah gacanteeda ku soo celisa. labadaa qorshe ayaa ay dowladda Soomaaliya hadda iyaduna u danaynaysaa inay isbahaysigan qayb ka noqoto. intaa haddaynu isla garanay iyo damacyada saddex geesoodkan qorsheynaya inay isbahaysi samaystaan, waxaynu haddana u gudbaynaa caqabad noocee ayaa ka hor iman karta isbahaysigan. haddiiba uu dhaqan galo, haddiiba Soomaaliya lagu qanciyo, waabay ku qanacsan tahay, laakiin isbahaysigani ay shaqooyinka markaasi ay qorshaysteen ay bilaabaan. dabcan adag oo mararka qaar u muuqda inuu yahay damac noqon kara mid qariska tuur ah, guud ahaan caalamka waxaa lagama soo dhoweyn doono. dowlado badan ayaa markan jiri doona oo iyaga qorshahan ay wadaan isbahaysigani uu khatar ku yahay. markaan ka bilowno dalka Ethiopia oo ay dalalkani u tashanayaan, iyagu way la socdaan xaaladda. qorshahooda ayaa iyagana waxay tahay in markaan damacaas ay ka hortagaan ugu yaraan iyaga oo ogsoon in hadda Eritrea iyo Masar Ethiopia aanay siyaasadahooda gaar ahaaneed waxba ka bedeli karin, balse Soomaaliya waxay Ethiopia aaminsan tahay in Soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah siyaasadaheeda gaarka ah ee ay gacanta ku maamusho. Ethiopia markaan ma ogolaan doonto Soomaaliya hoos tagta Masar iyo Eritrea. waxay Soomaaliya Ethiopia ku leedahay saldhigyo waaweyn, saaxiibo waaweyn, markaan iyagu dagaalkooda halkaas ay ka bilaabi doonaan isla gudaha Soomaaliya. balse waxaa iyadana xusid mudan oo ka hor iman doona aragtidan dowladaha gobolka geeska Afrika, urur goboleedka IGAD iyo labadan dal ee hadda isbahaysigan samaynaya, iyagana waxaa horey uga soo dhexeeyey loolan adag. Masar, urur goboleedka IGAD
xidhiidhkoodu aad ayuu xumaa. waxaa inta badan ay dhinacyadani ka mid ahaayeen igad kuwii u sahlay Ethiopia inay kaga guulaysato siyaasadda gobolka dalka Masar. waxay ahaayeen dalalkii siyaasadaha Masar ay doonaysay inay ka hirgeliso Suudaan iyo Soomaaliya, dalalkii markaasi ka hortegay ee Masar ku qasbay in siyaasadaheedii ay ku fashilanto. iyada oo loolankaasi horeba uga dhex jiray igad iyo Masar, oo Masar ay ugu qornaayeen dowladaha liiska Ethiopia, dowladaha la safan, ayaa dhinaca kale Eritreana ay dibad joog ka ahayd tan iyo intii ururkan la aasaasay oo ay xubin ka ahayd, iyadoo mararka qaar ururnimadeediiba ay weyday Eritrea. labadan dal marka waxay iyagu ku suntanaayeen inay dibad joog ka ahaayeen kana soo horjeedeen siyaasadaha urur goboleedka igad, oo ay u arkayeen in siyaasadaha igad ay hoos tagaan dalka Ethiopia. dabcan aragtidaas lafteedu sax ayay ahayd. Ethiopia iyo dalalka ku midaysan urur goboleedka igad badankooda waxaa ka dhexeeya saaxiibtinimo iyo dana istaraatiijiyadeed oo maguuraan ah. siyaasadda oo laba nooca, qaarkeed waxay ku xidhan tahay danaha markaas jira, balse waxaa jira siyaasado danuhu ay ka dhigayaan istaraatiijiyad ahaan kuwa maguuraan. tusaale ahaan dalalka Ethiopia iyo Kenya waxay leeyihiin saaxiibtinimo siyaasadeed oo istaraatiiji ah oo gobolka. Soomaaliya waqtigii taariikhii hore waxaa markaan ay ka tirsanaysay dalal Soomaaliyeed inay ku jiraan labadaa dal. colaado ayaa jiray, taas waxay keentay dana istaraatiijiyadeed oo rasmi ah inay ilaa iyo hadda jiraan. haddaba dalalkan Kenya, Uganda, Djibouti oo ah dalalka safka hore ee hadda saamaynta weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, oo saddexdoodaasba ay isku xulufan yihiin Ethiopia oo ku hogaamisa howlgalka hadda Soomaaliya, waxaa iyaguna ay markaan u arkaan isbahaysigan cusub haddii dalalkan ay ku dhawaaqaan ay ficil ahaan uga hirgeliyaan geeska Afrika inay khatar ku tahay iyagana saameyntoodii siyaasadeed. sababtoo ah dalalkan waxay majaraha u hayaan siyaasadda Soomaaliya ee geeska Afrika. howlgallada dalka ka socda iyaga ayaa loo soo maraa. haddii ay noqoto howlgalka hadda sii dhammaanaya ee ATMIS iyo midka cusubba, waxay dalalkani danaynayaan iyagu inay noqdaan kuwa hogaamiya howlgalladan ama saamaynta culus ku leh siyaasadda Soomaaliya. tan iyo inta Soomaaliya looga baahan yahay howlgallo nabad ilaalineed ama kasii qayb ahaanshaha qorshaha dib u dhiska nidaamka dowladnimo ee dalka Soomaaliya. ma rabaan isbahaysi kale inuu markaas kala wareego awoodaha iyo saamaynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya oo dalalkani horeyba ay ugu aflixeen, ay dano badan ka fushadeen, dhaqaale badan uu kaga soo galo howlgalka nabad ilaalinta caalamka. waxay ka dagaalami doonaan doorkan hadda dalalkani haystaan inay ku soo xidhiidhiyaan laba dal oo aan hore masraxan qayb uga ahayn, horey ay ugaga adkaadeen, islamarkaana ka fogeeyeen inay saamayn ku yeeshaan siyaasadda gobolka geeska Afrika. waa Masar iyo Eritrea. marnaba ma aqbali doonaan Ethiopia, Kenya, Uganda iyo Djibouti oo hadda ku aflaxay inay iyagu hogaamiyaan siyaasadda Soomaaliya in markaan ay booskan ku soo xidhiidhiyaan Masar iyo Eritrea. inkasta oo dowladda Soomaaliya taas u ololeynayso hadda, dalalkani ma aqbali doonaan, si toosa iyo si dadbanba way uga hortegi doonaan. loolankan in fooda la isku darana wuxuu bilaaban doonaa amase haddaba uu bilowday inta ka hadhay waqtiga kala guurka 3 bilood ee sanadkan u dambaysa iyo horraanta sanadka 2025 oo lagu ballamay howlgalkan in markaas wejigiisii kale uu bilowdo, wejiga kalena lagu sheegay inuu sanadkan ku egi. dhaqdhaqaaqyada loolanka ayaan la soconnaa inay hadda ka socdaan gudaha Soomaaliya. inta badan dalka Soomaaliya waa laga diiday dalkaasi Masar. waxaa dhinacyada Soomaaliya oo u badan maamul goboleedadu ay danaynayaan in ciidamada Ethiopia ay qayb ka sii ahaadaan howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya. tan iyo inta dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin ciidamo nabad ilaalin. dhinacyadan waxay ku xidhayaan haddii Soomaaliya ciidan ay dhisato in dhammaan ciidamada dalka laga saaro, balse inta loo baahan yahay howlgal nabad ilaalineed inay Ethiopia qayb ka sii ahaato. waxaa taas iyadana dabada kaga jira oo barnaamijkaas ku taageersan dalalka Kenya, Djibouti iyo Uganda oo iyagana ciidamo ay ka joogaan saamayn siyaasadeed ku leh dhinacyada saamilayda siyaasadda dalka. dhinaca keliya ee ololeynaya markaan in booska lagu xidhiidhiyo saaxiibadan ayaa dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliyeed waxay doonaysaa ciidamada ugu awoodda badan
ee howlgalkan cusub inay noqdaan dalka Masar ee mustaqbalka hogaamin doona. Waxaa kaloo hadda soo baxaysa in isla Soomaaliya u ololayn doonto in ciidamada Eritrea ay howlgalkan qayb ka noqdaan. Waa bilowga halkan ay isku haleeli doonaan isbahaysiyada ku loolami doona Geeska Afrika. Waxa uu ka bilaaban doonaa garoonka loolanka howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya. dabcan door ayay ku leedahay doorashada Soomaaliya maadaama ay yihiin dalka howlgalka laga fulinayo. balse waxaa taas daba taalla in go'aanka oo dhammaystiran waqtiga kala guurka ah aanay Soomaaliya keligeed lahayn. howlgalkan hadda socda iyo ka cusub qorshihiisaba waxaa qaybta ugu weyn leh golaha ammaanka ee Afrika, urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay iyo dowladaha deeqda ku bixiya howlgalkan. dhammaan intoodaas waxay soo dhaweynayaan howlgal degan ammaan ah oo dhammaan dhinacyadani ay qayb ka noqon karaan, laakiin ma ogolaan doonaan qaabka isbahaysigani ay u rabaan inay iyagu howlgalkan kula wareegaan. taasna waa dhinaca ay kaga imanayso ee labaad. IGAD iyo Ethiopia waxaa caqabad ay iskaga hor iman doonaan, ay ku horjoogsan doonaan isbahaysigan. waxaa kale oo iyadana isbahaysigan ay caqabad kala kulmi doonaan dalalka waaweyn, dowladaha deeqda bixiya, qaramada midoobay iyo dowladaha kale iyagana hadda saamaynta ku leh amase inay Soomaaliya maal gashadaan raba. dalalkaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Turkiga, Imaaraadka, Qatar iyo dhammaan dowladaha kale ee waqtigan raba inay Soomaaliya maal gashadaan masaalixda inay khayraadka Soomaaliya shidaalka badda ka faa'iidaystaan. dhammaan dalalkan ayagu waxay rabaan Geeska Afrika oo xasiloon aan qalalaasi ka jirin, saaxiibada ay danahan ka leeyihiin ay heshiis yihiin. waxay danaynayaan masaalixda Ethiopia ay ku leeyihiin, midda Soomaaliya ay ku leeyihiin iyo midda ay guud ahaan gobolka Geeska Afrika ku leeyihiin inay noqoto kuwa xasiloon, kuwa u suurtagelin kara heshiisyada maalgashi ee shidaalka qudistiisa, khayraadka badda ay dhammaan dhinacyada la galeen inay u fulaan si nabadgelya. maadaama ay taas jirto, dalalkan iyaguna waxay u arki doonaan isbahaysigan haddii ay isku dayaan inay dabacooda fuliyaan kuwa khatar ku ah. iyaguna waa ka hor iman doonaan, waana la dagaalami doonaan isbahaysigan, iyagoo kula dagaalami doona qaab siyaasadeed oo xeeladaysan oo isbahaysigan lagu kala furfuri doono amase lagu kala diri doono. haddii loo baahdo waxay adeegsan karaan dhinacyo kale oo awoodahooda ah oo iyagu ay si gaar ah u maraan. si kastaba ha noqotee, isbahaysigan caqabadahaas ayaa soo wajihi kara amase ay suurtagal tahay inay la kulmaan. haddaba damacyada isbahaysiga ee kala duwan, Soomaaliya oo damaceedu uu yahay mid kaa soke, damaca fog ee Masar iyo Eritrea oo ah inay dib ugu soo laabtaan masraxa siyaasadeed ee Geeska Afrika, dalalka hore danahan uga leh masaalixda gobolka, loolanka iyo howlgalka nabad ilaalinta oo iyadana fooda la isku dari doono waqtiyada kala guurka ah. dhammaan warbixinadaas iyo aragtiyada ka soo kordha halkan ayaa idinku soo